مقدشو بدور فرح متين هنا لو كان ما شاء الله والله شعبنا بالبلد مفرح inta aanan furin xirmada dulucda warkayga marka hore waa sidee xaaladda cawayskii ee magaalada Muqdisho iyo ku dhiirashada bulshada ganacsiga iyo dukaamaysiga xilliga habeenkii ah waxaan ku jiraa dadkii wadanka joogay muddadii oo kala duwan ee soo maray xilligan xilligii aan isla yahay ugu fiicnaa ugu amni badneed ganacsiga xilliga hadda wuxuu ku jiraa kobac fiican dadkii ku dhiiranayaan guriga qurux badan ganacsiga qurux badan iyo dadkuna waxyaabo badan oo danay jireen waa loo keenay marka ganacsigu fiican شو جرهان وقت هبينكي جناح سيد أدو في عينها وحرك كرت دنيرة جامعة أو بدكود أي جلفت كود قان صد إن جناح سمير وقت هبينكي سي مجالة كل عيد القارة وقر وصقع هبينكي جناح سيد مجالة يومانك حتى لفت جد جلف دم الحفظ صعد كمجالة تذكرني صباح عن مجالة أصاد ما شاء كان أنا جرهان دنيرة مركان هاي تذك ما دويت كي ما أنا مقابلة كي ما أنا حافظ وسينا إن أنا مجال جناح سيد كجرون نبضة كجرتو صعد مجالة في عينها qof laga yaabaa suuq meel kala joogo inuu inta isgoyska dabka ama marka mukaramo oo imaado ganacsi qof kale oo bulshooyinka degan in waxa laga yaabaa oo kaaraan u aado ganacsi oo kale yani maanta Muqdisho waa waxay noqotay adduunyada la tartamaysa mool oo kale marka ka dukaamaysanayso waxaad moodaa Dubai inaad joogto amniga iyo ganacsiga waa isku xiran yihiin sababtoo ah hadaan amni la helin ganacsi ma soconayo marka si amni loo helo waa inay ganacsatada canshuurta bixiyaan dawladda la shaqeeyaan gobolka Banaadir ay la shaqeeyaan waa xilli dhexe oo habeen ah waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho qaybo kamid ah Muqdisho xilligan habeenkii xilliga aad doonto waa dukaamaysan kartaa haddii aad tahay ganacsadana waad ganacsan kartaa haddana waa ku soo noqday waxaan u jeedaa insha Allah horumar inay sameynayso dhinaca amaanka ahaado dhinaca businesska ahaado laakiin halka arrin rabo inaan ku baraarujiyo waxay tahay haddaysan dadka ganacsatada ah ee magaalada Muqdisho oo runtii laga qayliyay aysan u soo jeesan dalka inay wax ka qabtaan oo wax ka dhisaan shilin dibad laga keenin laguma dhis karo wadankan xoolo la soo bari international community keentan laguma dhis karo waxa dhisi karo wadan waxa dhisa waa dadkiisa way ganacsatada marka waa inay lacagta cashuurta bixiyaan waa inay meesha ay alaaqal ay ku ganacsanayaan horteeda ay nadaafiyaan oo dhisaan oo hagaajiyaan nin walba meesha ku ganacsan aad iyo aad meel sare soo maraa magaalada waa nabad dadka aad iyo aad u ganacsanaa ganacsigana aad u wanaagsan yahay run ahaantii taasi ma jirto dadka ganacsigana aad u socdaa wax dhibaatana ma ku qabno ganacsigeenu horumarsan yahay ma sha Allah isha ayaa marqaati ah tani waa Muqdishadii muddo badan maqribkii laga xiroon jiray laakiin hadda maya waxaa jira goobo loo dhaclaysi iyo haasawo tago xiliyada habeenkii ah oo ay dhalinyaradu ku caweeyaan dhaylo la'aan caawa waxaan nasasho ku imid beerta nabadda sida aad u taqaanaan beerta nabadda waa meel aad loogu soo dalxiisa markuu barnaamijku kugu furan yahayna aad tahay meel maskaxda aad ku dibsan karto waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay xamar meelaha ugu dalxiiska badan ee loo imaado wallahi amaanka magaalada aad u soo kabsanaya sidii hore ma aha sida ay si ka wanaagsan arjeynayna inay sii noqoto insha Allah amaan guud ee magaalada Muqdisho 5 sano ugu dambeysay aad buu u soo hagaagaya sar u socdaa amaanka inta badan uu fiican yahay degmooyinka 17 ka ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho dadku way socdaalaan sidoo horena aad ugu fiican yahay amaanka marka loo fiiriyo 5 sano oo la soo dhaafay wixii ka horeeyay kaad anigu ku faraxsanahay wadankayga aan imid oo loo maleynaa hamar sidaas ahaan oo ka maqanay magaaladan 3 sano oo haddana aan joogo 20 cisho oo farxad iyo wanaag aan ku imaaday aan ku faraxsanahay maanta wadankayga xamar aan joogo oo loo maleynaa wadamada kale laga cabsanayo Muqdisho lama tagi karo khalad ayaa u fahansiin wadamada Qarbeed Soomaaliya aad ay u fiican tahay Muqdisho wayna fiican tahay ma sha Allah tabarakallah waxaan khayr ahayn kalma kulmin wadankeena waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu noo fiicneeyo Ilaahay noo hagaajino wadankaaga wax ku dhaama male anagoo xaruurana laga kaxeeyay maanta farxadan wanaagan ayaa halkaan la soo kulumnay waxaa jirtay xilli aysan ku fudeyn inaad u fiidsi tagto magaalada Muqdisho adigoo caafimaad qaba haddana haysta dhaqaale inkasta oo ay weli dadku dhiilo guud dhanka amniga qabaan haddana waxaa jira ciidamada dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay lagu arkayo magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii ah iyagoo mootooyin ku roondeynaya
نجري وعر magaalada muqdisho waxay iska bedelaysaa meelo badan waxaana kaa daliil u ah ganacsiga xilliga habeenkii ah iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho cabdicays cabdullaahi maxamed cabdicasiil Soomaali Cable magaalada muqdisho